هالنقننا كور هذه شهادة أيضاً أديدين munaasabad si hersare loo soo agaasimay oo ka dhacday hoolka jaamacadda Aadna Aadan ayaa ahayd mid lagu maamuusayay ardayda sanadka afraad u gudubtay ee kulliyadda dhakhtarnimada medicine-ka ee jaamacaddaasi. Munaasabadan waxaa ka soo qayb galay madaxda ugu sareysa jaamacadda Aadna Aadan, dhakhaatiir kala duwan iyo xubno kale oo lagu soo casuumay munaasabadani. ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay xubnihii iyo madaxdii kala duwan ee ka soo qayb gashay munaasabadani. xafladani waxay daaran tahay waa ardayda maanta year 4 noqotay ee ka gudbay from year 3 ee dhamaysatay waxa la yiraahdo basic science oo ah qaabka jirku u shaqeeyo muxuu ahaa shaqadiisa iyo structure-kiisa iyo xanuunada guud ee ku dhaca. laakiin iminka waxay galayaan wax phase kale labaad oo la yiraahdo clinical phase. in aad mar kasta noqotaan dad isdhuldhig badan. isdhuldhig waa maxay? inaad noqoto qof hayina oo dabacsan oo u nugul qofka bukaanka ah iyo qofka waxa weeye relativeskiisa la socda, amba waalid ha noqdo, amba walaal ha noqdo, amba xaas ha noqdo, dadka ku xeeran qofka xanuunsanaya. oo waxaynu dareensanahay qofku marka uu xanuunsanayo waxa uu dareemayaa bayn culus, kaasi wuxuu mudayaa mar kasta in lala dareemo oo waxa weeye loo dabacsanaado. marka insha Allah waxaan idin rajaynayaa guul kullee oo soo guuleysateen comprehensive exam oo culayskiisa lahaad ka soo baxdeen waxa kaliyeedii ahayd wax weeyaan maanta basic ba ka soo gudubteen, clinic ba soo gasheen, maanta laga bilaabo muunadii jaamacadda qayb ba ka tiin kullee waa kama kala tago jaamacado badan ba isugu yimaada, arday badan ba isugu timaada. jaamacadda Aadna Aadan kulliyadeeda medicine-ku siday tahay reflection cidda ka bixinaysa waa cideena waarka joogta. I've only been here for 1 week, but I can see that the faculty, the administrations are working every day, okay, to make sure you guys are getting a better education from better experts. So make sure you reciprocate that, okay, quality that's invested in you with your everyday improvement. وإننا نسقرب شغلنا متكمل حنوصل ويا بكانكم وإيه الكاجا مركب بكان مركب شقينا يسو وأنا تقف في كرتو سيدي هو يدا يبكتا أديكوا بكا المها جوا بكا ولا الكاي بكا ما أنت دول الكا حنوصته سيدا نص حنين أما هو يدا حنوصته وأنا بكانكم وقف في كرتو يسقن روح الرجينا يا برشة علم عافمات كنا حباهين هي إن الدداشان ددال بو باهين ددال كوام حي إن داد وحى آخر دان safarkii ugu dambeeyay ee anaga iyo Dr. Adnan Ismaaciil aanu Taiwan ku tagnay waxaanu booqanay dhakhtar la yiraahdo Changhua Hospital. waxa dhakhtarkaasi maalinta patient sariiraha yaalay 5,000 oo patient baa yaalay, 7,000 oo outpatient way imanayeen maalintii, 12,000 oo patient ayuu dhakhtarkaasi u adeegay maalintii. adnaa bakhraatigayga ah laba qof oo ku jira maanaan arag, 12,000 oo qofna waa loo adeegaya, laba qof oo ku jirana maanaan arag. technology baa la isticmaalay, aqoon baa la isticmaalay. dhaqaalaha ay sameeyeen waa dad inagoo kala inaan dhaqaalaha waan sameyn karnaa. waxa uu qof bilaadan ah oo adoo kala uu sameeyo adna waad sameyn kartaa. gabadhii munaasabadana waxaa soo xidhay gudoomiyaha iyo aasaasaha jaamacaddaasi Marwa Dr. Adna Aadan Ismaaciil. waxaan doonayaa ardayga wanaagsan, macallinka wanaagsan, dhakhtarka wanaagsan inaad tiigsataan. ha noqonina kuwa raadiya shahaado aydan u dhididin. ha noqonina fadhi wax ku suga in wax ugu yimaadaan. dhalaalkaaga ha kuugu yimaadaan, darajadaad soo dhaxsato ha kuugu yimaadaan, daryeelka iyo maxaan ku yiraahdaa wanaagga aad bukaha ku soo mutay aad u qabato taasaa darajadaada ah, magacaaga ah. khayr hooyo khayr hel, ducada qofkaas kugu ducaynayo ilaahay khayr ha ku siiyo, waad mahadsantahay, nabarkii ilaahay uu iga dul qaaday. ducadaas ayaa banga ilaahay kugu dhacaysa. wax ka qurux badan oo ka xoog weyn oo ka qiimo badan ma jiraan. ducadaas soo dhacsada. munaasabadu markay soo dhamaatay waxa ardaydan ka gudubtay qaybta basic-ga isla marhaantaana u gudubtay qaybta clinical-ka oo ah qaybta waararka way ka shaqo bilaabi doonaan loo xiray koodharka cadcad ee dhakhtarnimada. Cabdirasaaq Cumey, MMTV.